Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha leh. Maanta waxaan ka hadlaynaa qodobo 11 qodob ah. 11ka qodob qof kasta oo muuqaalkan dhammaysta wax badan ayuu ka faa'iidi doonaa. 11ka qodob wax kale kaga hadli mayno. Waxaan kaga hadlaynaa waxyaabaha gabadhu ay ku jeclaato saaxiibkeeda. Haddii 11ka qodob ay gabadhu aragto si waali ah ay gabadhu u jeclaanaysaa saaxiibkeeda. 11ka qodob waxaa ugu kow ah ama ugu horeeya inta aanan gelin qodobada fadlan like saar muuqaalka. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe tahay loobin. Qodobka ugu horeeya gabadhu waxay jeceshahay wiilka ku xushmeeya dadka hortooda. Haddii gabadha aad ku xushmayso dadka hortooda si waali ah ayay ku jeclaanaysaa. Sidaas si lamid ah haddii gabadha aad ku bahdisho dadka hortooda waxay ku nacaysaa si aysan weligeed dad u nacin. Marka in la xushmeeyo qofka aad bay u fiican tahay. Waxaase ka sii fiican in si gaar ah loo xushmeeyo. Waxaa ka sii fiican in dadka hortooda lagu sii xushmeeyo. Qodobka labaad waxay tahay inaysan isku canaanan carruurta hortooda. Gabadhu waxay aad u jeceshahay haddii qaladba uu ka dhaco waa bini'aadan in aan carruurta hortooda wax loogu sheegin, in qolka si gooniya loogu sheego, la yiraahdo waxyaabahan ayaa qaldan sax. Marka waxaad arkaysaa lamaanayaal badan oo inta badan qaladaadka isugu sheega carruurta hortooda ama isku canaananaya carruurta hortooda. Qodobka saddexaad ee gabadhu ay jeceshahay ama wiilka ay ka eegto waxay tahay inuusan ka qarsan murugtiisa iyo farxadiisa. Haddii gabadha uu saaxiibkeedu mar walba la wadaago murugtiisa, mar walba la wadaago farxadiisa, gabadhaasi wiilkaasi aad bay u jeclaanaysaa. Waxyaabaha marka qodobka afraad ee gabadhu ku jeclaato saaxiibkeeda waxaa ka mid ah inay hal miis ku wada cunteeyaan. Inta badan lamaanayaashu ma sameeyaan. Waa laga yaabaa marka arooska 1 iyo 7 inta lagu jiro inay wada sameeyaan, laakiin muddo kadib ma sameeyaan. Marka gabadhu aad bay u jeceshahay in hal miis ay kula cunteyso saaxiibkeeda. Qodobka shanaad ee gabadhu ay ku jeceshahay saaxiibkeeda si gaarkana ay u danayso waxay tahay inuusan taleefan ku mashquulin marka ay si khaas u sheekaysanayaan. Dadka inta badan markay sheekaysanayaan waxaa jira dad taleefanada isku boojeeya ama ku mashquula. Gabadhu waxay jeceshahay inaad ihtimaam gaar ah siiso, mobilka xagga iska dhigto, la sheekaysato. Qodobka lixaad ee gabadhu ay ku jeceshahay wiilka saaxiibkeeda waa inuusan ka fogaan marka xaaladaha gaarka ay ku jirto. Haddii gabadha xaaladaha gaarka waxaan ka wadaa marka ay uur leedahay, marka ay caadada ku jirto iyo marka ay umusho kadib. Intaasba gabadhu waa xaalado u gaar ah waxayna u baahan tahay daneyn gaar ah. Qodobka toddobaad ee gabadhu ay jeceshahay ama wiilka ay ku jeclaato waxaa ugu ka mid ah inuu u mahad celiyo markasta. Tusaale marka gabadhu waxay soo marsataa cilaan inuu dhaho yes masha Allah cilaankan aad buu qurux badan yahay. Gabdhuhu inta badan bil kasta waxay soo gataan marada cusub ama baatiga cusub inuu yiraahdo maanta masha Allah. Gabdhuhu waxay sameeyaan waxay bedelaan fadhiga ama jiifka qaabkii qaab kale u dhigaan inuu dhaho masha Allah maanta. Marka qodobkaas gabdhaha aad bay u danayaan. Qodobka 8aad waa inuu siiyo daryeel u khaas ah. Waa taan ka soo hadalnay marka daryeelka wuu kala yahay. Daryeelka u khaaska waxaa ka mid ah inaad waqtiga ilaaliso, waxaa ka mid ah inaad mar walba iyada ka warqabto, waxaa ka mid ah iyada kaliya maahane waalidiinteeda xataa inaad danayso. Qodobka 9aad ee gabadhu ku jeclaato wiilka waa inuusan u geysan gacan qaad ama jirdil. Inta badan rag qaar way sameeyaan inay gabadha gacan u qaadaan marka ay isku dhacaan oo kale. Gabadhu marka aad bay u neceb tahay qodobkaas. Qodobka 10aad oo gabadhu ku jeclaato wiilka waa inuu mar walba wacyigeliyo. Inta badan wacyigelinta iyo sheekada iyo hasaawuhu waxay ku egyihiin inta badan ragga waxay sameeyaan kaliya marka intaysan gabadha la aqal galin. Haddii aqalgal uu dhaco kadib waxaad arkaysaa 7 bil 2 bil kadib in wacyigelin wada sheekaysi badan uusan jirin oo wiilkuna iska mashquulo gabadhuna ay dhahdo guurka ka hor sida uu ahaa wiilku ma aha. Marka qodobka 11aad ee gabadhu aad ku danayso qodobka ugu muhiimsanna ah waa inuu la soo xiriiro marka uu magaalada ama shaqada jiro. Inta badan gabdhuhu aad bay u danayaan in la soo xiriiro marka magaalada ama shaqada aad jirto. Waxaad arkaysaa marka lamaanayaasha inta badan waxay iswacaan kaliya qaarkood waxay iswacaan bis marka ay gabadhu wiilka dan uga baahato guriga arrimaha guriga oo kale. Sidoo kale asna wuxuu soo wacaa marka guriga danka soo hesho oo kale ama waxa uu sheegay. Inta kale marka qaar waxaa jira marka hasaawo in la isku tuuro marka shaqada ama magaalada lagu kala maqan yahay. Marka 11kaas qodob gabadhu aad ay u jeceshahay. Waxaan rajeynayaa marka insha Allah mawduucan inaad wax badan ka faa'iiday. Like saar muuqaalka intaadan ka bixin. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay hadda nagu soo biir.